وتهاي داوديال مركله كل وعن دمانتي بميل والبو joogtaan iyo si walba muuqaalkeena idiin soo gaaraya barnaamijkeena reeso banayaan guda galeynaa dabcan aan isku soo laabano waxaynu ku bilaabaynaa qodobkeena ugu horeeya ee la xiriira Soomaaliya waxaad moodaa inay dardar gelinayso qorshaha la wareegitaanka mas'uuliyadda amniga wadanka iyadoo maalmihii ugu dambeysay dawladda federaalka Soomaaliya arrintaasi sida muuqata ay dadaalo dheeraad ah iyo juhdi ballaaran ku bixinaysay sidii looga mid dhalin lahaa hadafka ah sidii Soomaaliya mar kale mas'uuliyadda amni ee dalka gacanteeda u soo gali lahaa iyadoo oo ku sii tiirsanaanta ciidamada ajnabiga ah ee dalka jooga laga maarmayo sidaynu wada ognahay dalka waxaa jooga ku dhawaad 22,000 oo ciidamo oo ajnabi ah oo ka socda qaar ka mid ah wadamada Afrika sida wadamada Uganda, Burundi, Kenya, Djibouti, Ethiopia iyo sidoo kale wadamo kale oo iyaguna qaybta booliiska AMISOM ka tirsan waxaynu ognahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay dhawaan ka hortimid qorshe la xiriira in mar kale hanaanka hawlgalka midowga Afrika AMISOM isbedel lagu sameeyo iyadoo qaramada midoobana ay door ku yeelanayso hogaaminta markan haddase waxaa soo baxaysa dabcan in qorshahani uu yahay mid ballaaran oo la dardar gelinayo kulan ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaana looga hadlayay arrinta tan waxaa ka qayb galay kulankaas oo ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho wasiirada arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda gaashaandhigga amniga iyo saraakiil kale oo ku jira taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya iyo saraakiil kale qorshaha la wareegitaanka mas'uuliyadda amniga ayaana lagu dardar gelinayay taas oo muuqata inay tahay mid muhiimad gaar ah leh waqti xaadirkan waxaynu idiin soo gudbinaynaa bal shirka jaraa'id oo mas'uuliyiintu ay wada qabteen oo ay si guud uga faahfaahinayeen waxa ay Soomaaliya u baahan tahay iyo waxa ay tahay dalka inuu haatan xoog saaro si looga mira dhaliyo qorshayaashaas waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo shirkan maanta aan ku furayno la wareegidda amniga qaranka guddigii si istiraatiiji ah u hagi lahaa ama ka imow hay-adaha dowladda federaalka ama hay-adaha dowlad goboleedka waxaan ku dhawaaqnay guddigan haddaad soo xasuusataan sanadkii hore madaxweynaha hal mar buu wuxuu isugu yeeray prime ministerka ra'iisul wasaaraha isagoo maaragtay bil un jira xukuumaddana markaas cusub tahay waa waxa la isugu yeeray hay-adaha amniga qaranka ee heer dowlad federaal markaasaa go-aankii halkaas lagu qaatay in STP steering committee-ga la sameeyo marka ballanqaadkeennii ahaa inaan fulinta la wareegidda amniga Soomaaliya iyo diiranaanteenna ah inaan waddankeena annaga dib ula wareegno waxa weeyaan meeshan ka hagi lahayn way waxaad la socotaan dalkeena in ciidamo ajnabi ay joogeen muddo ka badan 14 sano 14 sano gudahooda dowladana isbedelay waxaan samaysanay ciidamo qaran oo iskugu jira militariga booliiska nabad sugidda usluub waxaan leenahay ciidamo aad u firfircoon oo la tababaray oo aan ku faani karno marka waxaan leeyahay yaraysanina aqoon badan ay idinku jirta waxaa khubaro badan baad kaashin doontaan caalamka iyo dowladda Soomaaliyeedba idinka warsuga labadan maalin waxaa la rabaa inay dib u eegis ku sameeyaan qorshiyaalkii Soomaaliya hore u sameysay STP1kii midkii review-ga lagu sameeyay haddaan dib ugu laabano waxaa jirtay mar laga hadlayay in la keeno ciidamada dalka oo loo doodayay oo aan u campaign gareynaynay STP1kii midkii review-ga lagu sameeyay haddaan dib ugu laabano waxaa jirtay mar laga hadlayay in la keeno ciidamada dalka oo loo doodayay oo aan u campaign gareynaynay oo aan codsanayna in loo keeno ciidamada sida wasiirku sheegay Cabdi Saciid waxay ahayd 14 sano ka hor caruurtii dhalatay xilligaas maanta way qaan gaareen almost waxaan aad ugu faraxsanahay runtii teamkii technical-ka ahaa ee ka shaqeynaya shaqadan oo runtii meelo badan aan ka amaano haddana aan ku celinayo gaar ahaan aan aad u jeclaystay inkastoo ay wada dadaalayeen saraakiishii dhalinyarada ahayd ee ka socotay ciidanka xoogga dalka aan runtii aad u bogaadinayo taliye waad ku mahadsantahay waxaa soo saartay saraakiil waxgal ah
wasiirkan waxaan ku idhi maraan kulan kala qayb galo waxaan ku idhi maanan filaynin saraakiil sidaas u dhisan inay ciidanka xoogga dalka kuwaasina waxay ahaayeen wasiirada amniga gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ka qayb galay kulan ka dhacay magaalada caasimadda muqdisho kaasi oo lagu howlgelinayay guddiga qaabilsan qorshaha la wareegitaanka mas-uuliyadda amniga ee soomaaliya oo haatan kulankooda dabcan uu uga furmay magaalada caasimadda ee muqdisho maalmaha soo socdana uga sii socon doona halkaasi iyada oo lagu gorfayn doono habka iyo hanaanka howlgelinta guddigani iyo qorshaha soomaaliya ee kala guurka ee la wareegitaanka mas-uuliyadda amniga sida ay ula wareegi lahaayeen waxaa muuqata in dowladdu haatan wixii ka dambeeya qorshayaasheeda arrinta tan la xiriira ay cadcad yihiin weliba ay ka faa'iidaysanaysa waqtiga yar ee haray iyadoo haatan wixii ka dambeeyana aan isku sii hawli doonin kusii tiirsanaanta ciidamada ajnabiga ee jooga dalka oo sida muuqata ku dhowaad 14 sano ka badan wadanka jooga sida uu qaray wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay leedahay ma ahan waqti xaadirkan intaan ka badan muddadii aynu kusii tiirsanaan lahayn xuduud shisheeye oo aynan ogeyn waqtiga inaga tagi doonaan waa waqtigii aynu dib u dardargelin lahayn dhisitaanka hay-adaha ammaanka gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo iyaga lafdhabar u ah waayihii ugu dambeeyeen dowladda madaxweyne farmaajo waxay dardar gelisay qorshayaasha dib u dhiska ciidamada si gaar ah dowladaha Turkiga iyo Mareykanka iyo sidoo kale Ingiriiska ayaa qayb ka ah ingiriiska waxa uu dabcan tababaraa qaybta lixdanaad ee saldhigoodu uu yahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sidoo kale Mareykanka waxa uu gacanta ku hayaa cutubyo kamid ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee Commandoska Soomaaliya ee Danab oo xiradooda ugu weyn ay ku taalo saldhigga Beledoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose halka Turkiguna ay tababaraan cutubyo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee Gorgor oo lagu tababaro dugsiga tababarka ee Turkisom ee ku yaala deegaanka Jazeera ee duleedka magaalada caasimadda ee Muqdisho ciidamo kale ayaa jira oo ay tababaraan midowga Yurub iyo sidoo kale dabcan dawlado kale laakiin sida muuqata kuwaas iyaguna ma ahan kuwo sida kuwan oo kale ay u tira iyo tayo badan yihiin waqti xaadirkan waxa ay Soomaaliya leedahay sanadaha soo socda waa waqtigeennii ugu dambeeyay aynu soo gabagabayn lahayn in dalkeena ay sii joogaan ciidamo shisheeye oo wadanka amnigiisa gacanta ku haya وهاجا عيدروسو طبعا برامجكاسي برامج ciidamada iyo hawlgalkan Soomaaliya in loo qabto ama hogaanka ciidamada iyo amnigeeda guud bay gacanta ku dhigto muddo ku soo socday waaye wasiirkii kan ka horeeyay wasaaradda arrimaha dibadda hadda jooga mudane Cabdirasaaq ayaa dabcan qayb ka ahaa soo laba kacleyntan iyo hadda dadaaladan lagu doonayay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay gabi ahaanba kula wareegto amniga guud ee dalka Soomaaliya isagoo kulamo kala duwan la qaatay wadamada ay ka joogaan ciidamada Soomaaliya iyo si gaar ah hogaanka ciidankan AMISOM isagoo dabcan ka dhawaajiyay in hadda wixii ka dambeeya dawladda Soomaaliya ay qorsheynayso in gabi ahaanba ay la wareegto gacan ku haynta amniga Soomaaliya iyo sidii ay amniga iyo dabcan ammaanka guud ee dalka ay uga wareegi lahayd ciidamada AMISOM ee dalka ku sugan waxa uu sidoo kale wasiirkaasi ka dhawaajiyay mar uu shir Muqdisho ka furmay ka hadlayay in hadda wixii ka dambeeya loo baahan yahay dabcan in baska Soomaaliya la rabo in lagu qaado ay iyagu darawal ka noqdaan aysan cid kale hogaaminin dabcan waxaad moodaa dadaaladan muddooyinka u dambeysay ama bilii ugu dambeeyaba in dawladda Soomaaliya ay xoog saaraysay sidii ay amniga dalka guud ahaan gacanta ugu wareegi lahayd iyadoo tan ay ka horeysay in hogaanka ciidamada militariga Soomaaliya gabi ahaan lagu wareejiyay hawlgelinta ciidamada AMISOM iyo si guudba kan xoogga dalka Soomaaliya